meeshaan hadda galmudug taallo waxa u malaynayaa ciriiri badan iyo dhib badan waxa soo gaarsiiyay dastuurka iyaga oo caalamkuba aad u aqoonin markasta oo aan damacno inaan hadalno waxaan rabaa inaan ku darno ummadda Soomaaliyeedna aanu sheegno xukuumadda iyo dawladda Soomaaliyeedna aanu sheegno in dastuur ay leedahay galmudug markii ay heshiiyeen ahlu sunna wa jamaa iyo galmudug waxyaabihii lagu heshiiyay oo ilaa Djibouti laga yimid waxa ku jiray in xukuumadaha la isku daro in dastuurka la isku daro in ciidanka la isku daro in uu dhaco total merge wax la yiraahdo isdhexgal sunna wa jamaa iyo galmudug ah arrimahaasi markii ay dhaceen waxa kamid ahaa dastuurkii ahlu sunna wa jamaa ee dastuurkii galmudug in la isku daray uu soo baxay dastuur cusub dawladda Soomaaliyeed iyo madaxdeedana waxaad moodaa in aysan xeerinaynin dastuurka iyagaas waxaan rabaa in ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo xukuumadeeda iyo madaxdeeduba ay akhriyaan qofkii aan heli karin wuxuu ku jira Google-ka dastuurka cusub ee galmudug baa la yiraahdaa haddii si kale loogu baahdana waxaan idin siin doonaa meel kale oo aad ka akhrisataan qofkii u baahan waan soo weydiin karnaa waa u diri karnaa waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed taas inay ogaato waxaan rabaa wasaaradda dastuurka khayr Allah siiyo oo maanta halkaan lagu casuuntay oo lagu loo daahfurtay xafiis aan horay aan ugu lahayn galmudug caasimadiisa wasiir Abshir iyo wasaaradda waxaan ka codsanaynaa inay caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed gaarsiiyaan dastuurka iyagaas sida ummad walba dastuurkeeda loona xaq dhowro oo loogu xaq dhowro ayana ay u xaq dhowrto inaad nagu baraarujisaan oo nagu wacyigelisaan inaan u xaq dhowrno caalamka iyo dawladda Soomaaliyeedna ay nagu xaq dhowrto dastuurka iyagaas